maalinkaas waxay ahayd maalinka gabadhan ugu farxadda badneed maxaa yeelay waa maalinka markaas ay aqalgalayeen ayada iyo jaceylkeedii laakiinse maalinkaasi maxaa dhacay gabadhii farxaddeedii waxay isku soo bedeshay murugo maxaa yeelay gabadhii miirkeedii oo dhan ayaa la qaaday inta aanan la galbinin ka hor oo waxaa lagu sheegay gabadhii ugu dambeyn in sixir la siiyey oo la sixiraday haddaba yaa sixiri ayaa isleedihiin oo maalinkii farxaddeedii gabadhan afka dhulka ugu qabtay wiilkii markaas ayada saaxiibkeed ahaa ee isjeclaayeen ee maalinkaas arooskoodii la dhigayay yuu guursan doonaa maxaase dhici doonaa qisada ugu dambeynteeda muuqaalka ku daawo bilaaw ilaa iyo dhammaad haddaan ugu cusubtahay soo dhawaaw haddaa hore nala joogi jirteen sidoo kale soo dhawaaw عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا قالي أكو حرنج لكين منيزة ميل والبعدون كجوكتان إنا يقو عافمات قبتانا رجينا فضلنا هدي أيتا مركو غوريسة أجلن كيك صوبو قنيسة وحاكا عدسانا ناس بسقرايب ناصارتو قنبالي كان آفورت سي مقالو البقوكو صودعو أما باو نقطة داودا أو هوري مقال كان لايك تسار انت وفيريو أنيقن ديرقلنا إيه تهي آتي آذا أمان سنتينا إذن لا يسيدو وناكسنا مرولبو إيلا السعوتان كومنتيدين قروح دبادان لدعوينك ديرقلنت إقرب إستاق walaaltinimada ay ku jirto mar walba ay muujinaysaan aad u maadsantihiin maanta waxa idin wadaa walaalay qaaliga qiso aniga muna ahaan aad ii taabatay dareen gooniyan igu reebtay idinkana waxa rajeynayaa marka aad muuqaalka dhameysataan wixii fikirkiina ah sidaa u aragteen iyo dhibaatada meesha ay ka timid in idinkana wixii aad tala naga siin kartaan hoos aad noogu reebtaan hadda walaalay qaaliga qisadan waxay dhaxmartay afar qof ayay dhaxmartay afartaasi qof waa laba wiil iyo laba gabdhood haddaba sidee dhaxmartay qisadan waxaa jiray laba gabdhood oo saaxiibo ah oo saaxiibadoodii heer yacni ay ahayd labadan qof lagu magacaabo mataanaha markaa idin leeyahay waxay ahaayeen dharka hal nooca la wada xiran jiray xaflad haddii la aadayo waa la israaci jiray casuumaad haddii loo socdo shopping haddii loo socdo magaalo haddii loo socdo yacni ma ahayn laba qof oo mar walba kala socdo waxay ahaan jireen laba qof oo mar walba isla wada socdo mid haddii markaas la waayo markaas waxaa jiro dhibaato ay dadka markaas dhihi jireen ee dariska ah haddaba gabdhahan waxay ahaayeen yacni saaxiib markaas aana kala maarmeyn isku sirqarsado aad iyo aadna iskugu kalsoon haddaba waxaa dhacday mid ka mid ah gabdhihii in markaas ay xiriir wada lahaan jireen wiil markaas ay qaraabo yihiin laakiinse aysan saaxiibteeda u sheegin maadaama aysan hubin xiriirkaas wiilkan wuxuu ku nool yahay wadanka qatar ee dalka carabta ayuu ku nool yahay haddaba waxaa dhacday markii ay ogaatay gabadhii in xiriirkoodii markaan uu jeceel isku bedelay lana taaban karo heer markaas yacni la dhihi karo waa la sheegi karaa amaba waa la shaacin karaa uu gaaray ayaa gabadhii waxay u sheegtay gabadhii markaas ay saaxiiba ahaayeen ee isku ruuxa ahaayeen arinta ay u bandhigtay oo waxay dhahday wiilkaas qaraabaanahay ayaan isjecelnahay oo wiilkan waxa uu ku nool yahay wadanka banaankiisa wadanka qatar markii saas loogu sheegay waxay dhahday waa arin aad iyo aad u farxad leh waxaan rajeynayaa inaad ibarto dumaashigee haddaba gabadhii waxay isbartay gabadhii iyo markaas wiilka markaas ay jecleed xilligaasna waxay ahayd xilliga markaas badana lagu wada sheekeysan jiray telefoonka gacanta ah yacni leeleenka guriga lasoo gashanayo ayaa lagu wada sheekeysan jiray meeshaas ayuu wiilka gabadha kala xiriiri jiray ama kala sheekeysan jiray markii ay isbartay kadib maalmo kadib gabadhii waxay bilowday inay saaxiibadeed ku dhahdo saaxiiba adiga waaba isturtay anigana ma igu tuurtid leen muxuu ahaay oo qadar iyo meelahaas maalugta ii gelisid waa ogtahay aniga inaan jeclahay dhalinyarada dibadda joogta amaba dibadda ka imaado yacni kulley dhalinyarada kuwa wadanka jooga iyo kuwa dibadda jooga wax farqiga ma laho qofkii wanaagsan unbaa wanaagsan mar walbana la raadsadaa lana guursadaa markii ay sidaas ku tiri gabadhii waxaa jiray wiil markaas ayada wiilka ay jeceshahay ay saaxiibo ahaayeen asagana wadankaas qatar joogay waxaa dhacday maalin ayada ay wada sheekeysanayaan wiilka ay isjeclaayeen in ay dhahdo niyahow waxaa rabaa in aa isbarto saaxiibka iyo saaxiibadeyda kabaran se u aragtaa arintaas wiilka iyo gabadhi waa la isbaray markii la isbaray kadib yacni telefoonaa la kala qaatay telefoonada guriga sidii ayay ayagana isku xiriirin jireen laakiinse labadan qof laba qof is aragtay ma labada qof oo la isbaraayo ma ahan dad is arkay yacni wejiga weji laakiinse labadan qof waa dad qaraaba oo is yaqiinay waayo haddaba waxaa dhacday
wiilkii in uu dhaha waxaan rabnaa inaan Soomaaliya soo aadno eheladii iyo familka aan soo salaano muddo maadaama aan maqneen waxaana jeclahay markaas wiilka saaxiibkay ahaa in gabadhii ay is arkaan anigana aan waalidkii aan ka doonto oo jecelkeeni aan u sheegno kadibna si markaas guurkeeni aan u diyaarino gabadhii waayay tir waa arin aad iyo aad u fiican wiilashii way soo baxeen oo waxay imaadeen wadanka Soomaaliya markii ay imaadeen kadib wiilashii waa yani dad banaanka ka imaaday dibadda ka imaaday oo maasha Allah hadiyado qurux badan ayay gabdhihii u keeneen aad iyo aad ugu farxaan marka waxaa bilaabatay in la is arko labadan qof dad isku cusub ma ahayn laakiinse labada saaxiibo waxay ahaayeen dad isku cusbaa haddaba waxaa dhacday muddo markii ay joogeen wiilkan in gabadhii ay isjeclaayeen uu raadsado oo kadibna ehelkeedii uu ka codsado lana siiyey lana dhahay maxay ahayd soo yani diyaar garow gabadhii guurkeedii gurigii yani wixii markaas qarash iyo aroos iyo wixii ku bixi lahaa soo diyaar garow gabadhii waa la siiyey oo waa la bixiyey oo wiilkii la siiyey haddaba labadii kale maxaa dhacay waaye markii ay kulmeen kadib weji las kula kulmay wiilkii wuxuu ku dhahay gabadhii anigana ka waran haddii aa waalidkaaga aa kaa raadsado maadaama aa xoogaa isla soconay waana kaa helay markii aan ku arkay arrinteena ka waran laakiinse gabadhii way ka cagajiida oo waxay dhahday weli aniga waxaan rabaa inaa waqti isiiso ama jaanis aa isiiso si aan si fiican isugu dhex galno hana dadejinay dhahday wiilashii waa ay laabteen oo waxay ku noqdeen wadankii qadar markii ay ku noqdeen kadib waxaa dhacday in gabadhii wiilkii ay xiriirkii u yara gaabiso amaba u jarjarto ayada oo markaas rabto in xiriirkoodii meesha uu kusoo afjarmo adiga ayadoona lis aflagaadeena amaba wax isku dhacitaan ama wax dhibaato aana meesha ka dhicin ayay wiilkii cudurdaaro badan u sheegtay ugu dambeyn saaxiibtii ayaa maqashay in markaas wiilkii iyo gabadhan xiriirkoodii uu soo afjarmay waa ay weydiisay waxay dhahday ani adiga saaxiiba ahayn waxna kala ma qarsan jirin maxaa keenay in xiriirkiini si dhaqsiya uu kusoo gabagaboobay uu yani kala haritaan ugu soo dhamaaday wiilka waa arkay wiil fiican waaye muxuu ceeb uu leeyahay maxaa ku dhibsatay markaas waxay tiri aniga dooqayga ma aan kamana helinay tiri waayay dhahday haddaba wiilkii markii uu muddo oo maqnaay waa uu soo laabtay wuxuuna u soo laabtaa waxay tahay in gabadhii uu guursado waxaa la qaban qaabiyey guurkii labadan dhalinyaro ee isjeclaa ee intaasna isu sugaayay gabadhi waxay dhahday maadaama adiga aa wadanka dibadiisa ka imaanaysid waxaan rabaa xaafad markaas waalidiinteyda ama dadkayga u dhow inaa i dejisid maxaa yeelay wiilkan muddo markii uu joogo bilooyin inuu laabto oo qadar u laabto ayuu rabaa sanadkii yacni mar ama maxay ahayd oo labadii sano mar inuu soo degtay yacni oo Soomaaliya gabadhii ugu yimaado ayuu rabaa ayadan waxay tiri intaas cidlaan dareema waxaan rabaa inaa waalidkayga daris igala dhigto wiilkii waa uu ka yeelay waxaa loo ijaaray 2 qol oo markaas ayada dadkeeda u dhow yacni waalidkeeda ama reerkeeda marka uu ijaaray yacni waa loo camiray labada guri waa loo buuxiyay waalidkii ducadii wax walba waa loo geeyay subaxii waxaa dhacay meherka waa maalinka arooska subaxii waxaa dhacay maalinka waxaa rabaa subaxii waxaa dhacay meherkoodii labadan qof markii uu dhacay kadib waxaa la gaaray galabkii ee galbiska ahaa ee baawurta la keenayay gabadhii taashka loo xiraayay kadibna sidii gurigeedii loogu galbin lahaa laakiinse waxaa dhacday saacado ka hor in gabadhii ay jooga ka dhacday markii ay dhacday kadibna lagu soo kala orday ee la fiiriyay ayada dhan ee noqotay qof afka ubarka keenay indhihii caddeysay isla markii quraan ayaa lagu aqriyay quraanka markii lagu aqriyay gabadhii dib waa ay usoo kici weysay oo waxay noqotay qof iska jiifo oo aana hadlaynin waxbana aana lahayn haddaba maalinka arooskii sida ayuu ku burburay gabadhii yacni guurkii nikaaxi wuu dhacay laakiinse aqalgeyntii ma aysan dhicin oo musiibadan ayaa imaaday kadib waxaa dhacday in ay kasoo wareegato muddooyin gabadhii quraan wax walba waa la saaray waa lala tacaalay diinka waa la wada saaray reerkeediina kama quursanin haddaba waxaa dhacday arrintii in ay sanad gabadhi saas sii ahaato oo wax natiijo ana laga waayo kadibna wiilkii laga codsaday inuu gabadhii iska furo oo kadibna noloshiisii fiirsado sida ayaa gabadhii lagu furay ayada oo sariir saaran weli markii la furay kadib waxaa dhacday muddo markii ay kasoo wareegatay يعني wax ka yar sanad markii ay kasoo wareegatay in wiilkii uu wadankii kusoo noqday wadankii markii uu kusoo noqday kadibna isaga oo markaas guursanayo gabadhii ay saaxiibaha ahaan jireen dadkii waa la wada yaabay xitaa waxay ku kala go'een wiilkan saaxiibkiisii ee hore gabadhan
ay xiriir u wada lahaan jireen dadkii oo la yaabay labadan qof meesha isaga macaadeen xiriirkoodiina yacni uu ka bilowday waalidkiisa xitaa aad iyo aad arrintaas uga xanaaqeen uu sameeyey wiilkii guursaa la dhahay laguma diidana laakiinse qof kale inaa guursatay ahayd ayadana sidoo kaleento maxaa keenayaan la saaxiibada ninkii markaas ay isjeclaayeen ee lagu daray in adiga aa guursato weliba ayada oo markaas qof xanuunsan ah oo sariir saaran laakiinse dhag jalaq uma siinin gabadhii nolol farxad leh yacni nolosha ay rabta ayay ku nooleed sanad walba wiilkan waa uu imaanayay oo Soomaaliya ugu imaanayay mar walba uu imaado uur ayay qaadaa uurkii laakiinse ilmihii intaysan 5 bilood soo gaarin way soo dhacaan sanad walba way soo dhacaan haddaba waxaa dhacday gabadhan uurka ugu dambeeyay markii ay qaaday ay 9 bilood yacni ay usii dhadhowdahay intii ka horeysay in yacni aysan seexanayn habeenkii ay qarweyso ay leedahay wax madooba ay imaanayo qof yacni oo madoow oo dhar madoow wato oo iga cabsiinayo gabadhii quraana la saaray si walba la yeelay wax walba lagu sameeyay si walba loola tacaalay laakiinse gabadhii qarow ayay ka bixi weysay oo mar walba waxaa la leeyahay erayo markaas ay ka cabsanayso markaas cabsi gelinayo oo badanaa xitaa ilmihii kasoo dhacay cabsidaas darteeda ayay uga soo dhici jireen haddaba waxaa dhacday gabadhan markii ay 9 bilood uurkeedii uu gaaray 9 markii ay gashay ay 8 kasoo baxday in xaaladeedii ay kasii xumaanayso sidii hore gabadhii way soo baxday oo waxay soo aaday gabadhii markaas ay saaxiibaha ahaayeen ee xanuunsaneed ee sariirta saarneed gabadhan waqti badan ilaa iyo 5 sano ku dhawaad waa ay saaran tahay sariirta oo wax hadal ma laho saxarada kaadida meesha looga bixinaa oo waxaa la dhahay gabadhan waa la sixray sixirkaasna waxaa la siiyay maalinkii arooskeedii ayaa gabadhan sixirka la siiyay sixirkaas dartiisa ayayna gabadhan la jiiftaa waxaana loogu talagalay in nolosha la dhaafiyo ay dhimataba ayada dhan amaba cimrigeedii sidaan ay ku dhameysato gabadhii waa ay soo baxday oo waxay u timid saaxiibteed ayay ku kor ooysay familkii gabadha dhaleen aad iyo aad oo la yaabeen oo waxay dhaheen maxaa kugu dhacay waxay tiri saaxiibaday dhibaato iyo maxay ahayd wax aysan u qalmin ayaan u geystay aniga oo markaas fiirinayo nolosheeda iyo farxadeeda iyo waxa markaas aniga ii muuqda kaliya ah markaas waxaa lagu dhahay saaxiibada maxaa ku sameysay waxay dhahday maalinka arooskeedii gabadhan aniga ayaa sixray oo sixir u soo sameeyay u soo qaaday kadibna siiyay ayay dhahday biyo ayaan wax ugu daray wixiina loogama dambeeyay tir gabadhii waa ay dhacday sidii ayayna maanta sariir ku saaran tahay markii ay sidaas dhahday kadib haddaba waxaa la dhahay wiilkiina sidee ku guursatay maxaa yeelay xiriir idinma dhexmarin isma jeclaanin maxaa keenay yacni in damiirkaaga uu ku siiyay yacni in aad guursato wiilkan gabadhii runta ayay sheegtay waxay dhahday asagana markii uu baxay kadib shaydaana iga xoog badiyay maadaama ay ayadiina sariir saaran tahay waxaan is dhahay maanta Janice ayaa haysataa ninkan intaysan naag kale kaa arkoonin inaa guursatid maalinka ugu horeeyay uu Soomaaliya yimid ayaan wiilkan ka helay oo aan jeclaaday ayay tiri saas darteedana waxaan go'aan ku gaaray in aniga uu i guursado haddii uuba qof guursanayo balka warama bal intaas oo xaasidnimo ah intaas yacni qoftan waa qof shaydaan ku adeeganayo waxaan bilaabay tiri in markaas anigana aan sixiro iyo lacagteedii iyo wax walba aan helay dhahday in aan u geeyo wadaadkaasna oo wax ii soo sameeyo loo niyeysanayo in waddanka markaas uu joogo loogu geynayo oo u tagaayo ninkii sida ayuu qalbigiisii igu soo jilcay jecel dhinacaygaana loogu abuuray sidii ayaan ku wacay markaan dhowr maalin sheekeysanayna wiilkii sidaas ayaan guurka ugu bandhigay wuuna iga ogolaaday sidaas ayaana ku guursaday laakiinse waxay tiri guur wuu i guursaday nolol qurux badanna waa ku jiraa laakiinse waxay dhahday nasiinyo iyo farxad adduunye ma helinay tiri waxaa noqday qof mar walba cabsi ku nool argagax ku nool waxyaabo kala dareemayso in nafsi qof ay ka gashay in qof nolosheedii ay ku ciyaartay mar walba dareemayo ayaa noqday caruurteedii waxay dhahday dembiga aniga aan galay dartaysa ayay u dhammaadeen oo 5 bilood ayagoonan gaarin ayay usoo dhacayeen haddana waxay tiri midkan waxaan rabaa in ilaahay si nadiif igu siiyo in la iska cafiyo
waalidkeedu waxay dhahaan anaga wax kuuma qabno qoftaanne ayada markay soo kacdo unbay ku cafin kartaa annaga waxba kaama dhihi karno haddaba waxaa dhacday arrintii in muxuu ahaay wiilkii maadaama waalidkiisay ogaadeen in uu yahay wiilkan wiil bedelan waxaa la dhahay inaa imaadid waay naagtaadii dhalmadeediina waa la gaaray wiilkii markii uu yimid kadib waa la qabtay quraan aa la saaray dhexdaa la gashtay sixirkiisii horta sidoo ku buray wiilkii arrintiin waa looga sheekeeyey markii looga sheekeeyey kadib gabadhii meesha ayuu ku furay wuu soo baxay wiilkii asaga oo markaas aad iyo aad yacni u calool xun aad iyo aadna uga xun dhibaatooyinka ay u geysatay noloshoodii gabadhan ay ka dhiganaysay jaceylkiisa saaxiib lilaahi laakiinse aanan ahayn saaxiib ay ahayd mas noloshoodii burburiyey haleeyey xaasid ahayd waxaa dhacday gabadhii in fool markaas loo qabto takhtarkii markii lala orday kadibna cunug meeday dhashay gabadhii cunug meeday dhashay meedkii markii ay dhashay kadib wiilka ay gabadhina sida ayay ku kala tageen waa uu furiyay kadib waxaa la bilaabay in gabadhii xoogga la saaray sida caafimaadkeeda ay kusoo heli lahayd asagana yacni uu gacan ka geysanayo maxaa yeelay markii hadal waalid ayuu gabadhii ku furay markii uu baxay kadibna wuxuu noqday qof asaga dhan la bedelay maskaxdiisa ugu dambeyn ilaah subxaana watacaala baryadiisa horta lagama quursado gabadhii waa ay soo caafimaaday oo caafimaad 100% ayay heshay lugaheeda ayayna kusoo istaagtay dib ayayna isku guursadeen wiilkii iyo gabadhii intaas isjeclaa ee la kala geeyey mar labaad ayay isguursadeen sidii ay jecleed ayuuna u sameeyey oo waalidkeeda ayuu daris kala dhigay sanad walbana waa uu u yimaadaa nolol qurux badan leh farxad leh jaceylkeeda iyo caruurba ilaah wuu siiyey tii dhibaatada geysatayna saaxiibadeed ayay u timid ayadoo cafis weydiisanayso waxay dhahday waa ku cafiyay dhahday ilaah subxaana watacaala oo na uumay addoommadiisa aan ahay intaasoo dunuub inta laga galo ayuu na cafiyaa aniga oo bini aadan siin ku cafi weynaa sida ayay ku cafisay gabadhan waxaan leeyahay waa gabar aad iyo aad yacni u qalbi dahabsan aad iyo aad yacni dadnimo u leh sabar u leh dulqaad u leh intaasoo dhibaato ah loo geystay intaasoo sanadood ayay sariir saarneed ayadoona wax kala ogeen afkeeda yacni waxna aan la siinaynin kaliya gabadhan faleeba ayaa ku socotay intaasoo sanadood bas biyaha afkaa loogu qoonay qararararaq ee tiri nolosha aan soo maray dhahday intaas qofka kuu geystay adiga ma cafin laheyd waay daawaday commentiga noogu soo qor insha allah gabadhii markii la cafiyey kadib ayadana nin ayay iska guursatay oo oday ah oo ilmo waaweyn haysto ilaa iyo hadda way iska nooshaa laakiinse wax caruura ma aysan dhalin oo waxay idin leedahay iigugu soo duceeyay saaxiibaday war qoftaan aniga ismaba lihiba qof ka qalbi fiican adduunka ku nool isma lihi idinkana wixii ra'yigiina hoos noogu soo qor insha allah haddii aad qisada ka hesheen like badan saara insha allah liketa maxaa iiga xasdaysiin soomaali maxamedey ya ani soomaali mihimiya waaba idinka yaabay liketa maxaa iiga xasdaysiin caawa waxaa ku dhahay habeen waa xilligaan duuwaayey videoga caawa ma aragtay dacwaa idinka ahay biliis liketa iska saara liketa suulka le waa suulka ma idinka go-aayo suulka meesha ma idinkaga heraayo marka waa kaasa insha allah inta hoos iigu dhigayso idinka ay ka geejin kara ay ka geejiye insha allah inta muuqaalka mid la mid ah ku kulmi doono waxaa idinkaga sii tagaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qisadeennii qalbi dahab meesha ayuu nooga eg tahay aniga qalbi dahaba u bixiyey wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu